saba Somali BBC Nirosana afaan Somaaliti waan tabsasamu ageeffataa turan ummanni Oromoo yeroo sana Itoobiyaa وأنا مركزي وده شيء قومية دا أورمدا دالك إثيوبيا أو 23 سنة كهر مركزي عدسي وصو غريبي بي سي دا عدسي قاسي أي هاتن مركزي بي بي سي دا كجوابتي شيء كذا سي حساب بدن وحيش سومري عبد الناصر سحنسحو يمكن استوديو يقول السجن عبد الناصر هي واد ما سنتهي آدي يريهن دتك بي بي سي دا وراقها usoo qora waliba xilli ka hor 25 sano 1990 iyo 5 ayuu ninkan warqad usoo qoray بي بي سي da wuxuuna yiri waxaan ku noolaa magaalada Hararge halkaas oo dad Soomaali oo kala ay ku noolaayeen markasta oo dadka Soomaalida arkana waxay dhageysanayeen laanta afka Soomaaliga ee BBC da waxaan isweydiiyay buu yiri sababta laanta afka Oromadana aanan iyadana BBC da aan looga hirgelinin marka wuxuu sheegay in markaas afka Oromada laga dhageysan jiray oo kaliya idaacada qaranka Itoobiya laga dhageysan jiray BBC da u jawaabtay jawaabtina waa la soo bandhigay hadda warqadii lagu jawaabay marka BBC xilligaas marka maxay ugu jawaabtay waxay ugu jawaabtay in aanan qarash loo hayn in laanta afka Oromada la furo laakiin 23 sano kadib sanadkii la soo dhaafay 2017 ay laanta Oromada waxay kamid ahayd 12 laamood oo BBC da ay soo kordhisay oo cusub oo halkan magaalada Nairobi qaarkood looga dhigay headquarter ama xarun looga dhigay marka ninkaasi hadda uu hadlaya wuxuuna leeyahay markii aan idaacada ka maqlay in laanta afka Oromada la furay aad iyo aad ugu farxay waxaan arkay buu yiri in codsigeygii laga jawaabay 23 sano kadib waana runtii sheeko aad u xiiso badan waxaana taqaana Soomaalida meel kasta joogta xitaa haduu hal qof oo Soomaali ah meel tuulo ah oo meel Afrika oo kamid ah adduun kamid uu joogo wuxuu raadinayaa sidii uu laanta afka Soomaaliga BBC da isagoo muujadaha gaagaaban iyo muujadaha kale ku raadinaya waan gartay marka Cabdinaasir waxa kale oo jirtay marka in BBC da warqadaas isla warqadaasi codsigu ninkaasi uu ku soo qoray ay kaydisay haatan soo bandhigtay codsigaasi wuu jiraa waana la soo bandhigay warqadii loogu jawaabay iyo warqadii laga helay ninkan Gamaashu ayaa la yiraahdaa oo 23 sano ka hor 23 sano ka hor uu soo qoray oo xitaa aad ka arkayso qaabka qoraalka iyo waxa oo dhan nidaamka lagu qorayo xilligan hadda aad uga duwan sida hadda wax loo qoro iyo xitaa farta nooca la isticmaalay iyo waxaas oo dhan waana sheeko aad u xiiso badan aad baad ma santahay saxan dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaa idaacadii subaxnimo oo soo saartay Firdawso Cusmaan waxaan idin la socodsiinaa aniga Bashir Maxamed Caata sidoo kale waxa warka inoo akhrinayay saxan tan labada duhurnimo inta dib hawada u kulmi doono waa dhamaanteedu isku duubanayd ilaa sidaas iyo nabadgelyo